degmada Bardal ee gobolka Bay geeka waliba la ka waday banaanbax linka dabaaldega ay Mawlid oo ah biliisha dhaladii nabiga Muhammad naxariisin nabadgeliyo korkiisa Ilaahay weela munaasabadan ya waliba ku qayb galay culimaadudiin ardayda degmada oo dhamaantii oo ah mucaashiqiinta nabiga Muhammad naxariisin nabadgeliyo korkiisa la weela haan waliba waa yar la ka tarbiyay diinta islaamka jeeladowga xabiibka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo ana shishal duban ka amaanay xabiibka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala khayri khalqihi sallallahu ala nuri arshihi tarfati bal munawwara sallallahu ala khayri khalqihi sallallahu ala nuri arshihi tarfati bal munawwara sallallahu ala خير خلقه صلى الله على نور عرشه طرفته المنورة على خير خلقه صلى الله على نور عرشه طرفته المنورة من أسمائه طيب خير الأصول لمطيب كل طيب منه تعبرا على خير خلقه صلى الله على نور عرشه دار الطيب المنور أول المخلوق محمد آخر النبي جينا أحمد ولولاه ما خلق الورى لبيك وسعديك يا نبي الله لبيك وسعديك يا رسول الله والخير كله فيك يا حبيب الله لبيك وسعديك يا نبي الله لبيك وسعديك يا رسول الله والخير كله فيك يا حبيب الله لبيك وسعديك يا نبي الله لبيك وسعديك يا رسول الله والخير كله فيك يا حبيب الله لبيك وسعديك يا نبي الله لبيك وسعديك يا رسول الله والخير كله فيك يا حبيب الله يا سيد السادات يا نبي الله ويا عود الهبات يا رسول الله والفتح كله فيك يا حبيب الله سلما يا إلهي وسلما يا إلهي فالله قبالك رب صل على من يا رب صل على munaasabadan oo haytito eedawin ya waliba ku qayb galay dadweyne eedan fara badan oo ku shalkooyan xaafado degmada Bardale culimadii ha ku qayb galaya waliba ku hadaleena muhiimadii weyn ee nabiga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si bulshada ka dhaxlahay taasay idii may ka dhiyay madii rasuulka jeysati barwaaga lan filadaan diris yang laqab yaka dhidi gaali shay irmaami oo irmaan hay doodi irinki shay irmaami holaje saas dagadan hatta bay la baadi madii jeyti halimi irinki shay ku kulusi barkusaas ee dadka diris yahay jiiranka may la raayahay halimi meel irinki lan kan daajaw mun feefidana irin jarta saasalili feefiyali irinki wali ama ma yogmeeda sabr oo ka dhid barwaaga shay kor jahil halima tusadi madii naas ku goyti awlaadoob naas ku goy la naga la fadaay yama dumaan hangnan dhigid bay meelay may nagdi xadara in ajli xadari ku digtoonaysho oo ah in ay soo waayeen la asiibo bimasaa'ilin xaadithatin masiibooyin oo hadarisen oo takhshaawu rasuulku ku obsadaas masiiba darisi aan ku obsadaas daraadiye yaa nagdi ma uniga naga fadima talashan tan ay geeka teegni hatana maalintan isniimu maalintii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aamaalis ko yeelaa kamid ah maalintan tan ay walaayeen maalintii nabiga Muhammad calayhi salaatu wasalaam qalada kamid ah maalintan tan ay leeyahay oo fadhe maalin sharaf leh waay ilaahay nin doonay subhanahu wa ta'ala maalintan tan ay lankii soomab meelahay meelan ta kan anto ya ilaahay ku badbaabay rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadii sahih bukhari ka soo wahay may walaayeen ilaahay subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka ila rahmatan naba badan la hadiri naban kan ay walaayeen hadii oo nahay ambidi maridi karateejo hadii nijaas deelte karate way gooyay korta saaso kala din gooyay
نبي محمد عليه الصلاة والسلام ومتيسنا على صلاة كدري والله كل متي إنك وناك سنايتي إنك فضل بدنايتي إلهي رويس إنك قيم الله أن كلون إلهي رسولك الشفاعة ديس الله نسي محبديسنا الله نسي نبي عليه الصلاة والسلام وارنا حريص إلهي مركاسو ونحن ندريو إنه مالنتي يسدل دي وين إنه كفرعنا وسين كديدان عليه الصلاة والسلام ما يوالي يسوب مالنتي يسدل دي oo wax yigli kidii soomi markii soonka loo arsadii maalin isniinga ma in soonta leeri waati ka tilmaamay daaka yawmun wulidtu fihi wa unzila alay maalintaas waa maalintii la dhalay wax yigani la hiidajiyo marka nabiga kaleey salaatu wasalaam maalintan iyo marka eedan wiinayay soon ayaa ka taadeemi Cabdilatiif Maxamed warbaahinta koonfur galbeed magaalada Baydhabo.